kulanti habboon daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad daawa doontaana waxaa ka mid ah Somaliland oo saacadii la soo dhaafay kumanaan askari oo hubeysan geysay deegaano hoostaga degmada Sila ee gobolka Salal iyo halkaas oo ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus maxaa ka jira in Somaliland ay doonayso in xubka dhigis xooga ay ku sameeyaan jamhadaha hubeysan ee u dhashay beelaha Ciise ee ku sugan deegaanadaas xogtii ugu dambeysay ayaan idin la wadaagi doonaa madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo magaalada Dubai ee dalka isku tagga Imaaraadka Carabta uga qayb galay shirweyne caalami ah kaasi oo ay isugu imaanayaan in ka badan 130 dawladood haddaba maxaa ka jira in Cirro inta uu ku sugan yahay Dubai uu la kulmayo saraakiil iyo madaxda sare oo ka tirsan Israa'iil xog ku saabsan ayaa idin la wadaagi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyn ogolaaday in Deni iyo Axmedoobe ciidankay rabaan ay la soo galaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya si ay uga qayb galaan shirweynaha uu cilaamiyay xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayo cadaadis xooggan oo kaga yimid kadib markii dhawaan hawada laga celiyay diyaaradaha siday wufuud iyo ciidamo hordhac u ahaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawa doontaan barnaamijkeena intuu hawada ku jiro balse daawadii haddii aad ku cusub tahay kanaalkan subscribe sidoo kalena muuqaalkan like kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay xogaha ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolada galbeedka Somaliland gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Sila ee gobolka Salal waxay sheegayaan in Somaliland xalay kumanaan askari ay halkaasi ku daabushay sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo xilkaas oo ku sugan gudaha degmada Sila ee gobolka Salal xukuumadda Somaliland ayaa la soo warinayaa in xalayto aagaasi ay geysay kumanaan askari oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo la sheegay in isku ballaariyeen tuulooyin fara badan oo hoos yimaada degmada Sila ee gobolka Salal ilaa xadka dalka Djibouti waxay wararku sheegayaan in ciidamadan markaasi ay ka yimaadeen talisyada guud ee Somaliland ee ku yaala magaalooyinka Hargeysa Boorama iyo sidoo kale Gabiley waxaana ciidamadaasi oo kumanaan kor u dhaafaya lagu xoojiyay ciidamo hore u joogay gobolka Salal halkaas oo ay kaga hortagayaan colaadda ka taagan deegaano ka tirsan gobolada galbeedka Somaliland ilaa hadda xukuumadda Somaliland xog rasmi ah kama bixin ciidamadan oo la soo wariyay in la geeyo tuulooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Salal saate ila xogaala ayaa xogaya TV u sheegay in xukuumadda Somaliland ciidamadaasi ay amartay lana doonayo in markaasi lagu xasiliyo xaaladaha colaadeed ee ka taagan galbeedka Somaliland loogana hortago faragelin ka timaada dhinaca dalka Djibouti oo haatan Somaliland ay xiisad culus kala dhaxayso ayna ka cabsi qabto Somaliland in Djibouti hubiyo ciidamo fara badan gudaha soo galisay Somaliland wararku waxay sheegayaan in xukuumadda Somaliland ay doonayso in si qasab hubka looga dhigo jamhadaha hubeysan lana dhaqan galiyo amarka ka yimid madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro kaas oo dhowr jeer kala duwan xukuumadda Cirro ay isku dayday inay hubka ka dhigto jamhadaha hubeysan ee u dhashay beelaha Ciise ee Galbiirsi ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolada galbeedka Somaliland xilli xaaladda deegaanadaasi ay ka sii dartay xukuumadda Cirro ayaa hore isugu dayday in wada hadallo lagu dhameeyo xiisadda ka taagan galbeedka Somaliland isla markaana jamhadaha hubka laga dhigo hase ahaatee waxaa muuqata in amarka xukuumadda uusan dhaqan galin isla markaana dhinacyadu weli ay hubeysan yihiin taas oo la soo warinayo in xukuumadda Somaliland ay ku riixayso in isku daydo in xoog hubka uga dhigto jamhadaha hubeysan ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolada galbeedka Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa si adag u hortimid in hub sharci darro ah oo aysan dawladdu lahayn lagu dhex wato deegaano ka tirsan Somaliland iyadoona cabsi xoogan ka qabta in jamhadahan hubeysan ay ka faa'iideystaan dhinacyo kala duwan kuwaas oo si toos ah uga soo horjeesan kara ciidanka Somaliland sidoo hore uga dhacday deegaano ka tirsan degmada Sila horaantii bishii Janaayo ee ina wadaartay markaas oo ciidamo hubeysan oo u dhashay beelaha Ciise iyo militariga Somaliland ay isku dhaceen taasi oo sababtay dhimasho dhaawac soo gaaray dadka gobolka Salal haatan waxa ka taagan cabsi xoogan oo la xiriirta xaaladda gobolkaasi oo ka sii dareysay kadib markii dagaalo toos ah saacadihii maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhaceen halkaasi kuwaas u dhaxeeyay jamhadaha hubeysan ee ku sugan aagaasi isla markaana isku hayso dadka deegaanka waxay wararku sheegayaan in jamhadahan weli ay haystaan hub fara badan isla markaana ay wadaan dhinac walba abaabul dagaal iyo sidoo dhinaca kale u riixi lahaa xaaladuna ay u muuqato mid ka sii dareysa xilli xukuumadda Cirro ay si weyn uga baarandegayso go'aan ay ku soo afjarto colaadan oo cabsi xoogan laga qabo in ay soo farageliyaan dhinacyo kala duwan kuwaas ugu horeeyo qorshaha dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Djibouti ay gadaal ka riixayaan doonayaan in gobolkaasi looga saaro Somaliland si jamhadaha si hubeysan loo baritaaro ciidanka Somaliland ay ula dagaalamaan
وهاك daawadayaal qodobo kale xasaasi ayaa inoo soo socda balse daawadi haddii aad ku cusub tahay muuqaalkan like kanaalkana subscribe kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta uga qayb galaya shirweyne ballaaran oo ay markaasi isugu imaanayaan in ka badan 130 dawladood oo ka socdo dalalka caalamka madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo shalay ka baxay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa martiqaad rasmi ah oo ku saabsan shirkaasi ka helay madaxda Imaaraadka Carabta kuwaas oo kala hadlay markaasi in Ciro uu yimaado magaalada Dubai si uu shirkaasi uga qayb galo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa shirkaasi oo maanta ka furmay uga qayb galay magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta kaas oo ay xaadir ahaayeen markaasi in ka badan 130 dawladood iyo wufuud caalami ah oo ka socotay Ciro ayaa halkaasi ka sharxay muhiimadda ay leedahay Soomaaliland iyo inay u diyaarsataa in la aqoonsado isagoona markaasi xusay in dalalka caalamku aysan hayn in markaasi ay sii dhowrtaan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu intaas ku daray in Soomaaliland ay markaas diyaar u tahay inay soo dhaweyso cid kaste oo ka qayb qaadanaysa dawlad dhiska isla markaana Soomaaliland ay tahay dal in ka badan markaasi 35 sano ku soo caalamaalay nabad isla markaana dawlad dhiska heer fiican ka maraya una baahan in la aqoonsado waxa sidoo kale sharaxay goobaha istiraatiijiga ee dhaca Soomaaliland oo ay ka mid tahay dekedda magaalada Berbera iyo in ay kula hayso marinka Bawel Mandeb istiraatiijiga taasi oo sheegay in dalalka caalamka ay muhiim u tahay isla markaana dhankooda ay diyaar u yihiin in la maalgashado Ciro ayaa shirkaasi ku soo bandhigay markaasi muhiimadda gaarka ah ee Soomaaliland u leedahay dalalka caalamka isagoona dawladihii halkaasi fadhiyay iyo kuwa maqanba ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii Soomaaliland loo aqoonsan lahaa madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Dubai waxa la filayaa inuu kulamo gaar la qaato xubno ka socda Imaaraadka Carabta iyadoo ilaa la xaqiijin ay sheegayaan in Ciro uu la kulmi karo markaasi mas'uuliyiin iyo saraakiil ka socota Israa'iil kuwaas oo ku sugan gudaha magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxaana shirka Ciro iyo Dubai ay ku soo aadayaan kadib markii dawladda dhexe Soomaaliya ay albaabada isugu dhufatay markaasi dhaqdhaqaaqa guud ee Imaaraadka Carabta ee gudaha dalka Soomaaliya taasi oo Imaaraadku haddan uu si weyn u baritaarayo qorshaha Israa'iil iyo Soomaaliland ay dalalka caalamka ka hesho aqoonsi Imaaraadka ayaa la soo warinaya in dalal kala duwan uu bandhigay in la aqoonsado Soomaaliland isla markaana ay ka qayb qaataan qorshaha aqoonsiga Soomaaliland maadaama Imaaraadku hadda saameyntii Soomaaliya hoos u dhacday taas beddelkeedana uu doonayo inuu Soomaaliland markaasi saldhigto ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in raaligelin toos ah uu ka bixiyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland socdaalkoodii laga hor istaagay ee magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan wajahaya cadaadis ugu xuma oo ka hor yimid kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud amar ku bixiyay in la hor istaago diyaaradaha ciidamada waday kuwaas oo 2 maalin ka hor la filayay inay ka soo degaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kana soo kala duulay magaalooyinka Kismaayo iyo sidoo kale Garowe hordhacna u ahaa safarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ay ku imaanayeen magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirkaasi uu baaqday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu wajahayay cadaadis ugu xooggan oo kaga imaanaya dalalka beesha caalamka iyo xubnaha daneeya arrimaha dalka Soomaaliya kuwaas oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbanayay in uu arintaasi raaligelin ka bixiyo waxay wararku sheegayaan in Xasan Sheekh Maxamuud kulamo kala duwan uu la qaatay dhinacyadii ka shaqeynayay isku imaatinka Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhinacyada mucaaradku oo ugu horeeyaan xubnaha beesha caalamka isla markaana uu ka dalbaday guddi uu magacaabay inay u tagaan Siciid Deni Axmedoobe si ay markaasi qayb qaataan shirkan isla markaana ay soo laabtaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la soo warinayaa inuu fasaxay in cadaday rabaan ay la yimaadaan markaasi gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inkastoo aan si rasmi ah go'aankaasi hadda loo xaqiijin karin haddana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay xuquuq sheegayaan inay suurtagal tahay inuu aqbalo dalabka Axmedoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud maadaama dawladda dhexe Soomaaliya hadda ay ku qasban tahay Siciid Deni iyo Axmedoobena ay markaasi ku xireen shuruudo inay la kulmaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qasab tahay inay wataan ilaalada gaarka waxay xoga soo baxaya sidoo kale ay tibaaxayaan in loo ogolaaday ilaa 50 ilaa 40 askari oo gaar ah kuwaas oo la soo wariyay inay wataan hub yar oo ay ku jiraan bistooladaha isla markaana loo ogolaaday in ciidamadaasi ay kala soo degaan magaalada Muqdisho si kastaba Siciid Deni Axmedoobe oo in ka badan 3 sano oo khilaafaad uu soo dhexmaray iyaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan shaki xoogan ka qaba in ay la kulmaan markaasi magaalada Muqdisho filooyin qorshayaal halis ku ah oo ay soo maleegtay dawladda federaalka Soomaaliya arintaas oo dhankooda saameyn xoogan ku reebi karta
gudaana daawada inta subax ku warka kala socoteen kanaalka wararka Xukaya TV fadlan daawada haddii aad halkan nala soo gaartay ku soo biir kanaalka muuqaalkana lagdhe kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid Xukaya wararka halkan aan ku soo gudbino gambaleelka furo oo hel xogaha halkan ku soo gudbino nabadgelyo